qurba joogta xisbiga wadaniga ku sugan dalka dibadiisa ayaa in ka badan 10 daqiiqo calamaana oo astaanta xisbiga wadaniga ugu tala gashay xisbiga wadaniga ku soo hagaajisay aqoon-yahan Axmed Xiis Cabdi oo isla markaana lagu wareejiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani Maxamuud Xasan Saleebaan Doobo waxaana halkaas ka hadlay aqoon-yahan Axmed Xiis Cabdi oo isagu wakiilka ah calamaantani isla markaana ku wareejiyay gudoomiyaha Doobo marka koobaad waxaan salaamayaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha haweenka gudoomiyaha ku-xigeenka haweenka dhammaan madaxda mas'uuliyiinta gudoomiyaha ku-xigeenka degmada xubnaha kale ee gobolka qiimaha iyo qadarinta naga mudan salaan kadib maanta halkan waxaynu u fadhinaa inaynu ku wareejino calamaan 10 duuba oo aan ugu talagalnay gobolka Togdheer runtii waxa soo dhiibay calamaantan ilaahay khayr siiye injineer Maxamed Deeq Muuse Ibrahim oo aan ahayn markii koobaad labaad saddexaad 7 jeer oo hore ku wareejiyay bilado xisbigu ku xardhan yihiin iyo gudoomiyaha xisbigu ku xardhan yihiin oo iyo qalab sports oo sida koob iyo kubadaba dhalinyarta reer Togdheerna ay hore oo lagu maaweliyay kuna ciyaareen runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa mas'uulkaas injineer Maxamed Deeq 10 duub runtii waxaan ugu talagalnay inuu xisbigu ku sii isticmaalo xilliga uu u baahan yahay halkan waxaan doonayaa inaan ku wareejiyo markaa xubnaha xisbiga ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Maxamuud Xasan Ismaaciil Saleebaan oo naga gudoomo waxaan jecelahay inaan fariin kooban u diro xisbiyahanada xisbiga daliya dibadba joogan maanta waxa weeye waa xilligii loo baahnaa qacantiina waa xilligii loo baahnaa tamartiina xisbiga reer Togdheer khaasatan ee taageera xisbiga wadani daliya dibadba joogan soo garab istaaga xisbigiina rajada shacabka si aad uga qayb noqotaan isbedelka dalka aynu rajayno insha Allah inuu ka dhaco 13 November bishan insha Allah 12aad ciise waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleebaan Doobo kana mahadnaqay agabkan lagu wareejiyay isla markaana baaq u diray cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarka xisbiga wadaniga ku soo dhaweynayaan gacmo furan aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Xiis aqoon-yahana nin dhalinyarada firfircoona xisbiyahana xisbiga la xajala badan kaga jirto daliya dibadba wuxuu ka soo ururinaya waanu ka gudoonay calamada runtii astaantii xisbiga wadani way qaali garowday waaba la waayay Axmed wuxuu yiri xisbiyahanadu ha keensadaan xisbiga u dadaalaan war waxaan leenahay rinjiga casaay magaalada way ku yariyeen iyo mariya casaabe bacdayaasha iyo rinjiilayaasha kale oranjkii soo badiyay baan leenahay oo keensada waayo dadka calamayna weydiinayaan xisbigii dadka aad bay u taageersan yihiin meel walba calankii baa ka taagan miyiga magaalada waa laga rabaa sidii barigii kulmiye soo baxayay wadanina maanta marayay war bacdayaasha iyo calamadooda ka go'an baan leenahay Axmed Jaamac Xajadan Axmed Digiro qubaaya telefishinka caalamiga Soomaaliya News TV Boorco